magacayga waa Ayuub Cismaan Dirshe haddaan ka dhiibto ra'yigayga dowladda Kenya boqolkiiba 99 way ku qaldan tahay go'aanka ay qaadatay ee ahayd markii koowaad ayagoo ka fiirsan iyo la baxday safiirkoodana ay u wacdeen dowladda Soomaaliya waxaa ka sugaynaa in ayadana go'aan degdeg ay ka soo saaraan. Assalaamu calaykum walaal waa maasantiin ugu horeyntii haddaan ka dhiibto ra'yiga maxaa la yiraahdaa ay qaadatay maxaa la dalka jaarkeena maxaa la yiraahdaa Kenya ay ka qaadatay go'aankii ay ku degdegtay ahaa inay safiirkeena soo eriso safiirkoodina ka kaxeeyda maxaa la yiraahdaa dalka Soomaaliya ugu horeyn horta way ku qaldeen fikirkaasi degdeg ku qaateen annaguna waxaan ku raacsanahay maxaa la yiraahdaa fikirka ay ka soo dhiibtaan dawladda federaalka maxaa la yiraahdaa ee Soomaaliya go'aanka ka qaataan ku raacayna insha Allah. magacaygu waa Cabdikariin Qorane waxaan rajaynaynaa maanta inaan ka hadalno mowduuca ay Kenya ku erisay safiirkii Soomaaliya keedin oo la baxday kaas oo aan tan Soomaali dhamaanteed aan ka xumaanay waxaan rajaynaynaa in dawladda federaalka ayaduna ay qaado doonto go'aan ay uga jawaabayso midka Kenya waxaan haddaan shacabka Soomaaliyeed waxaan garab taaganahay in aan dawladdeenu waxa ay soo go'aamiso aan qaadano Kenya waxaa leenahay fudeedka ay ku fududaatay go'aanka ay qaadatay waa inay ka fiirsataa adduunkana u sheegaynaa Soomaaliya dhulkiisa lagu maxad gudbi karo inta difaaca kartana Soomaali inta noo sheegay difaaciina haddaan dhalinyaranahay haddaan odayaalnahay haddaan dumarnaaba haddaan fikradeedii ka dhiibto su'aasha ay weydiisay maxay kula tahay hadalka Kenya iyo safiirka Soomaaliya laga soo ceeriyay Kenya aniga waxay la tahay mid qaldan safiirka Soomaaliya oo Kenya laga soo ceeriyay Kenya waxa la yahay arintaas ay ku degdegtay waa dawlad xumo iyo hadal xumo ayaan leeyahay marka waxaan ku qanacsanahay dawladdeena Soomaaliya waxay ka soo hadasho oo ka bixisay jawaab ka bixiso